hay'adda shaqadoon ayaa ardayda ka qalin jabisay jaamacadaha Hargeysa iyo Badar u qabatay tababar ku saabsan hal-abuurka ganacsiga nidaamka shaqo loo doonto iyo sida loo qorto mashaariicda iyo CV-yada. agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga Cabdirashiid Axmed Guulad oo madashani ka hadlay ayaa ardayda u sheegay in suuqa ganacsiga ee Soomaaliland uu yahay mid xor ah iyagana uu u baahan yahay balse looga baahan yahay inay la yimaadaan hal-abuurnimo. hadaladiisina waxa ka mid ahaa tababarkan ku saabsan hal-abuurka ganacsi ku saabsan maadaama aanu nahay wasaaradda ganacsiga kaasi waa qodobka ugu horeeya oo maanta muhiimka noo ah. waxaad leeyahay hambaliyo maadaama aad noqoteen aad ku soo biirteen bahdii ganacsiga ku soo dhawaada wasaaradda ganacsiga maad leeyahay marka hore soo dhamaantiinba maanta laga bilaabo ganacsatada tihiin ganacsigu waa waxa ugu muhiimsan nolosha qofka waayo cidna uma shaqaysida adiga shaqaystaa adiga lagu shaqeeyaa laakiin qofku hadduu iskii u shaqeeyo oo cid u shaqeeyo waa la xukumaa waqti baa lagu eegaa timekii wax kasta noloshaada waa ceeyri oo lagu xisaabtamayaa wax kasta lagu xisaabtamayaa. Ismaaciil Cumar oo ka socday hay'adda shaqadoon ayaa faahfaahin ka bixiyay tababarkani ay u qabteen 120 arday oo ka koobnaa 4 kooxood oo u socday muddo 2 toddobaad ah kaasi oo kor ugu qaadayeen aqoonta ardayda jaamacadaha Hargeysa iyo Badar iyo sidii ay iskood u noqon lahaayeen ganacsato iyagu leh ganacsi u xora. ka shaqadoon ahaana hawlaha qabana badana waxay u badan yihiin entrepreneurship programka amaba la talinta dhalinyarada tababarka dhalinyarada tayintooda kor soo qaadistooda meel la doonistooda amaba markay yimaadaan inaanu placement u sameeyno oo aanu shaqageyntaana aanu ka dalbano oo aanu maalin walba soo barino dhammaan meheradaha ku yaala magaalada shirkadaha waaweyn aanu maanta 30 kan aanu tababarnay 30 kan placement ma ugu sameyn kartaan 3 to 2 months ama 4 bilood annaga kabka bixina inta badan inta soo programka doona ardaydu business plano ay soo diyaariyeen business planadana biidmillaahi kariim cidda guuleysata waxoogaa maalgelina la siin doono. iyaguna waxaa madashani hadallada isku daba maray mas'uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada jaamacadaha Hargeysa iyo Badar iyo hay'adda Smart oo dhammaantood ka warramay muhiimadda ay leedahay inaad yeelato ganacsi ku xora uuna mahadnaqay hay'adda shaqadoon ee ardaydani tababarka siisay. gabagabadiina waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyay ardayda dhamaysatay tababarkani.